asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee nagu xiran. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad nabad iyo caafimaad qabtaan. alxamdulilah anagana waa fiicannahay. waxaa joogaa dhul duur ah. dhulkan waa dhul baadiya ah oo duura saa aragtaan. geedahaasaa ka baxaya. maqrib bay ahayd meeshaan markaan imid oo aniga oo magaalada Muqdisho salkeeda degan xilli maqribka la adimi rabay waxaan joogay halkan aan hadda dhulka idinkaga soo bandhigayo. muuqaalkan hadda idin soo dhigaya wuu cusub yahay, dabka hadda ka soo qaad. macnaha muuqaalada inta badan inta soo diyaariyo aan si ay u soo kala hormarmaraan, laakiin muuqaal maqribka aan soo duubay oo isla caawa aan idin soo dhigayo waxaan u maleynayaa waa dhifii naadir way yar tahay, macnaha ma badno. waxaan idin sharaxi doonaa dhulkan wuxuu yahay iyo xogtiisa oo dhan aan idin siin doonaa. intii hore noola joogtay aad u mahadsanyihiin. inta hadda nagu cusub waxaa si naxariis leh oo walaaltinimo uga codsanaynaa inay nagu soo biiraan channelka, subscribe noo saaraan, kambareelka furtaan, muuqaalkan like iyo share inay noo dhahaan. dhulka meesha hadda aan kasoo tagnay buu ku yaalaa, taas ila socda. hadal baan idin wadaa, laamigaan idinku geyn doonaa si aad shaxda iyo dhulku meeshu ku yaalo waxaasoo dhan aa u ogaataan. inta daqiiqo loo soconayo aa u ogaataan. muuqaalkan kuma soo celcelin doono, toosaan u wadayaa, balse waxaad xasuusnaataan halka aan muuqaalka ka bilaawno oo aan taagnayn geedaha dhexdooda dhulka ku yaala. taas waa isla fahanay. qodobka koowaad aa ka hadlayo waxa weeyaan dhulka duurka ah maxaa ugu badan tahay, ama mar walba duur maxaa usoo bandhigtaa. okay, dhulka deegaanka ah walaal, deegaanka dhexdiisa ah limidkii loogu talagalo wuu gaaray. macnaha qofkii deegaan rabo dhulka deegaankana waa soo dhignaa, kan duurkaana waa soo dhignaa. inta badanna waxaan dadka ku dhiiragelinaa dhulalka maalgashiga leh. dhulka hadda dhulkaanoo kale tusaale ahaan hadda deegaan aan ahayn balse deegaan noqon kara, inaan dadka ku tashkiilino, ku dhiiragelino si ay uga faa'iidaan. taas jawaabteed waxaa isleeyahay inaa fahanteen, oo sababaha aan mar walbo dhulalka noocaan oo kaleeta idin leeyahay meeshaan maalgashta future 5 sano kadib 10 sano kadib aa idin kala hadlaya. ma ahan hadda, inkastoo dhulkan hadda aan joogno deegaankiisu uu dhow yahay, kan deegaankiisu ma foga. sababaan idin sheegayaa uusan deegaankiisu ku fogeyn waa inuu yahay dhul meel deegaana u dhow. xaafadu u dhow yahay Xaye Kaafi la yiraahdo oo ka tirsan ceelasha biyaha. ceelasha biyaha joognay xaafada uu ku yaalo dhulkaana Xaye Kaafi la yiraahdo. Xaye Kaafi daris leeyahay. wadada Xaye Kaafina waa laga soo aadi karaa. meeshan anaga hadda aan kasoo baxnayna waa laga soo aadi karaa. dhulka meeshan ku jiro waa dhul badan oo aan ugu talagalay in aan dad badan oo isku xiran aan ku maalgeliyo, macnaha ay maal gashtaan, aan ku caawiyo inay maal gashtaan. dhulalkan oo kaleeto mar walba waa weydiisaan, waxaad dhahdaan dhul lacag la yaryareynayo. dhul lacagtiisa haddii la yaryareynayo lacag badan baa koraysa oo qiimaha hadda uu yahay ma ahaanayo. aniga waxaan rabaa lacagtiina inaad si kaasha ula baxdaan ayadoon waxba lacaga idin saarnayn. dhulka adinka milkiyadiisa ay yeelataan. faa'iidadii la idinka heli lahaa inuu adinka beri idin saarmato, ina adinka lacag ahaan ay idin korto lacagtii aan idinka macaashi lahayn. tusaale ahaan haddaad dhahdeen dhulka deen hana lagu siiyo, lacagta uu hadda marayo ma lagugu siinayo, waa in markaas lacag kale la dul saaro. lacagti waxaa la dul saaraa, macnaha tusaale ahaan markaasoo kaleeto haddaan tiin idinku raacno waxaan dulsaar ahaan u dul saari lahayn lacagti 2 sano kadib ama 3 sano kadib ama 4 sano kadib dhulka uu kuu shaqayn lahaa. okay, adi maxaa faa'iiday? waxba maada faa'iidin. qaabka anaga u shaqeyna marka waxay tahay inay dadka anaga nagu xiran ay faa'iidaan. dadka anaga nagu xiran inay dhulka ka macaashaan, maahan inay anaga ka macaashno, inay adinka ka macaashtaan. anaga xaqa ku leenahay dee dhulka iibintiisa waan ka faa'iideynaa, laakiin waxaa 10 jibaar badan inta adinka aa faa'iideysaan mustaqbalka. taasaa badan. ina hadalkaas ila fahanteen oo rajeynaa oo sida macnaha siiqada saxda ah oo u hadlay oo idinkugu dhaco. marka anaga dhul deena ma bixino. anaga dhul oo lacag la yaryareynayo
ma bixina hadda oo kuma shaqeyna qaabkaas. qaabka u shaqeyno waa qaabka ay bulshadu ayaga dhulka ku maalgashtaan ay ku faa'iidaan oo wixii la saari lahaa ayaga ay faa'iido ahaan u helaan. boontigaana waa fahanteen. dhulkan waa 100 boos oo isku xiran. 100kan boos oo isku xiran waxaa iibsan karta 100 qof oo Soomaaliyeed oo loo maalgelin karaa. dabcan meesha biyo way leedahay, koronto waa loo soo jiidi karaa, jidad waa loo bixin karaa, shaqooyinkaas oo dhan waa la qaban karaa. 100kan boos waa meel la deegaameyn karo, inta wadooyin loo bixiyo la dhisi karo, korontadina loo soo xariirin karay u dhowdahay, biyihiina ay u dhow yihiin. aslan laamigana aan ka fogeyn. laamiga qiyaasta wax 2 kiiloomitir ka yar buu noo jiray ama 2 kiiloomitir camal ah iska dhahno. dhulkan lacagihiisu ma badna, waa dhul adiga 3,000 wax ka yar ku dhamaanayo. calaabo $3,000 ka yar ku dhamaana. meel korontadina loo xariirin karay u dhowdahay, biyihiina leh, wadada oo xayakaafina u dhow yahay, oo wadada jayga oo xaafada xayakaafi dhex marto. xaafadu wayba la siman tahay. aslan boosaskan meesha ay ku yaalaan aaday macquul u tahay haddii la dhaho hala deegaameeyo, haddii la dhaho dadku ha maalgashtaan, intaba dhul aad macquul uga ah weeyaan. laamigana hadda waa joognaa oo waxba nooma jiro. meesha xayakaafi wadadeedana waa isla arkaynaa. xayakaafi waxaa la dhahaa xaafad ceelasho ka tirsan, inay fahmaan rajeynaa dadka aan sida fiican u garanaynin. waan intaa la gaarinin la foole iyo waxaas oo dhan. xayakaafi ceelashay ka tirsan tahay deegaan ahaan. xaafad deegaan oo la degan yahay, dhulkeedina qiimo ahaan uu kala duwan yahay weeyaan. waxaan marka idin leeyahay maalgashi dhul haddaa rabtaan 100 qof oo isku xiran, xitaa haddii la helo 150 qofood waa dhul loo qaybin karo. oo waxaa loogu qaybin karaa qof walba inuu qaato 10-20 cabir ah. 10-20 in loo siiyo, loo shaqaysiiyo oo macnaha dhulku dhul quruxsan uu noqdo. laamiga waa kana waa imaanay, iskuuskana waa kana oo xayakaafi ama arkada xayakaafina waa tana. laamigan waa laamiga ceelasha biyaha. dhul marka laamigan haysto, wadadaana wada halbowlaha muhiim waaye. waa wadada afgooye ex control afgooyena tagta. deegaankeeduna uu fiday, dhulkeeduna uu qiimo yeeshay. markuu qiimaha yeelanaya waa uun la degay. dhulkaana hadda deegaan cusub waaye, marka la dego qiimo badan uu yeelanaya. arkadan arkada xayakaafi waaye, wadadan hadda midigteena ka leexanayso xayakaafi loo aadaa. marka dhulku uun xayakaafi eriyadeeda la iska dhihi karaa, magac kale hadda loo bixinayo malahan. ceelasha afkeeda hore weeyaan xayakaafi, ceelasha kama foga. dabcan dadkii isku xiran oo group ah oo xitaa inta ayaga is abaaburo is soo aruuriyo oo danaynayo, waa dhul aad u anfacayo oo aan kala shaqeyn karno, ina ka faa'iidi doonaan fil mustaqbal ahaana dhow. insha Allah ka faa'iideysto. waan mahadsantihiin.